xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa maanta codka aqlabiyada leh waxay u qaadeen mooshin dhawaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay ka gudbiyeen shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka ee DP World oo gacanta ku haysa maamulka dekedda Boosaaso. Guud ahaan waxaa meesha ka baxay mooshinka kadib markii ay codeeyeen inta badan mudanayaashii baarlamaanka ee ka qayb galay kulanka. Ugu horreyn waxaa hadalka qaatay xogayaha baarlamaanka Puntland Cali Axmed Saalax waxaana ka sheekanaya inta badan ee baarlamaanka ee kulanka goobjoogka ka ah. 7 xildhibaan ayaa ka aamusay, 8 xildhibaan ayaa codeysay in mooshinka uu meel maro halka 23 kalena ay ka hor yimaadeen. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa ku dhawaaqay natiijada. إبراهيم حاج يوسف تلفزيون كتسمو مقالة مقدشو.